واكو مركا عيدن برا لبدا نين فارح واكما عبد الرشيد واكما فارح وحا وكسعدا جروب كلا دهو شيعة أما لو يقانو رافضة وأن الصومالي أها لكن مذهب كاس أيو أدوديا كدب مركي وكهلي عبد الرشيد ساسنا وجدان وأن الصومالي أها وكسعدا مذهب كأهل السنة والجماعة أيو ماركتي بوكسعدا أدوديا marka waxaan doonayaa inaad maaragtay daawasho wanaagsan ee ku soo dhawaada waxaan rabaa inaan siiyo marka hore faarax inaan siiyo ku soo dhawaaq الفاضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين إن شاء الله إخوتي في الله وحلقة وحانو ملاين هي وحلقة النادي أفراد وأن السجون ما دنو ولا لذا أهل السنة والجماعة حقيقة أنا فارحة وحن مثلها هي مدرسة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو ممثلين مدرسة الرسول اللي يقانو علماء الشيعة ذاتك قاركون أي هذان علماء الرافضة موضوع أن ما أنت كهذا لأنه وحوي وموضوع الصحابة صحابة محل هذا صحابة وحويو وحائلق من إن إسلق إحنا وحل هذا صحابي قرآن كريم كأمحوكيري أنه وحانو نقانو الصحبة إن قيحان ربا مركو هوري الأصل أن الصحبة لغة حق اللغة مركان في رنو وحال هذا الملازمة والمخالطة والمعاشرة لبقف أو إسلازمي وحويا إسلاهي أو وحويا معاشرنا أي نحمرتي waxaa kale oo luqada lagu idlaaqaa labada qof ee cadawga isku ah ee dagaalamana saaxiib waa la yiraahdaa waan dul istaagi doonaa ee quraanka kariimka lafdigu hadii suxba la yiraahdo ama saaxiib la yiraahdo waxba ma faa'iideeyo wala dhammi ma faa'iideeyo wala ma faa'iideeyo waxa loo yaqaano madxi ma faa'iideeyo إن يربى ربا إن ندل استاجو أن فيريو إلهي وحى وكتل مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلهي القرآن كيس كريم كأوحو كلها وما صاحبكم بمجنون قال ذي بالله الله يا صاحب كين ما هبا للاهي وأبو لهب يا أبو جهل يو رجاشي ووينيده قال ذا هيد صاحب كين ما هبا للاهي مد والا معها ورسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم sida oo kale ilaahay quraankiisa kariimka wuxuu ku tilmaamay oo uu ku cadeeyay lafdiga suxbada markii uu ka hadlayay oo saaxiibnimada uu ilaahay cadeynayay fa anjaynaahu wa ashaab as-safina ashaabul ayka ayu sidoo kale ilaahay uu ku sheegay jalla wa ala hadaba annaga hadaanu nahay culamaa shiica waxa saxaabi la yiraahdaa oo miciyaarka sharciga annagu agtayada uu qabtaa oo saxaabi uu noqon hayaa qofki waxa weeyaan miciyaarka iyo miisaanka aan anagu ku qabanno qofka islaamay istiqaamadiisu ay wanaagsanaatay miisaanka aan anagu ku qabanno weeyo ilaa intii uu ka geeriyoon hayayna rasuulullaahi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aan la qaabilin wax shariicada islaamka qaabilsan wax khilaafsan wax shariicada islaamka khilaafsan aan la qaabilin hada indana huwa saxaabi kaas ayaa anaga agtayada wuxuu ka yahay saxaabiga dhabta ah anaga agtayada ka haddaynu quraanka kariimka gadaal oogu noqono waxaan ka soo sheekaynay ilaahay quraankiisa kariimka inuu yiri ma dalla saahibukum wama gawa ma dalla gaaladii baa loo jeedaa ma dalla saahibukum wama gawa haddaan sidoo kale sii dhaxgalo nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam labada qof ee dagaalantay ee cadawga isku ah ama labada duwalna ee cadawga isku ee dagaalamo waxa la yiraahdaa laba duwal oo saaxiibo ah baa la yiraahdaa iyagoo saaxiibo ana saaxiibo waa la yiraahdaa iyagoo cadow ana saaxiibo waa la isku dhahaa xadiidkii rasuulullaahi maxamed ee yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam ayaa daliil u ah oo meeshan yaalo oo uu ka hadlayay nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam qofka qaatilka iyo maqtuulka labada dagaalamay oo nabigu uu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam saxaabadu markay weydiiyeen qaatilka waanu maqtuulka waanu garanay xaalkiisa fama balul maqtul fama balul qatil nabigu fama qaatilka waan garanay fama balul maqtuulka waanu garanay fama balul qatil nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam arrinka isaga markii la weydiiyay wuxuu yiri innahu kana harisan ala qatl saahibihi
wuxuu ku dadaalahayay saaxiibkii in uu dilo ayuu ku dadaalahayay saxaabada rasuulullaahi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam bal bacda alirtidaa inuu nebigu sheegay inay ridoobeen iyo in kale gadaal baan u dhigan doonaa wadaadku markuu dhex galo biidni illaahi albaari ayaan doonaynaa inaanu maraajicdii iyo sunantii ahlu sunnati waljamaaca iyo turaadtoodii iyo macaajimtoodii waxa ay ka yidhaahdeen inaan dul istaagno laakiin inta aanan dul istaagin macaajimtooda iyo turaadtooda intaanu dul istaagin waxaan rabnaa nabigeenu hal xadiid oo fi saxiixi muslim ku sugan nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi asxaabii 12 munaafiqan saxaabadayda waxaa ka mid yidhi 12 munaafiq ayaa ka mid ah fi asxaabii aniga saxaabadayda waxaa ka mid ah 12 munaafiqan 12 munaafiq baa ka mid ah 8 minhum laa yadkhuluuna aljanna sideed ka mid ah jannada maba galahayaan xataa yalija aljamalu fi sami alkhiyaat taskiyada qofka saxaabiga maxaa lagu taskiyeyn karaa ومسألة إيضنا أن نبهن إن شاء الله إن سفي عن أن تحقيق جنة هذا بقى أنك أكتر يده وحويا مفهوم الصحبة في اللغة وحويا مستوى كلا جدسن أي إلهه يؤاد فربضا أو لبا واسع أي إلهه وحل إلى هذا فلان صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن حال كيسو سداب النقضي لمان إلهي نون والبقو مهاجر أم يالا غير هذا النقضي waxay u baahan tahay masalada iyada in la taxqiijiyo waxaan dul istaagi doonaa dhowr saxaabi oo saxaabadii rasuulullaahi maxamed kamida sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxaan dul istaagi doonaa saxaabigii la dhihi jiray ubaydullah waxa weeyo oo abdullah ibn jahsh walaalkii ahaa ubaydullah ibn jahsh kana muhaajiran الهجرة أيقول له وحي أبهنا نايس ماشى أيضا إن لقيحه هجرة وحي ويان ومن هجر من مكة إلى المدينة أو إلى الحبشة أيان لين هذا وقفك هجروا ذي مكة أو هجروا ذي أرض الحبش أما هجروا ذي مقالة اللي هذا مدينة أيان لين هذا سحابي إسقى وحو قبل الذي هجري رملة بنت أبي السفيان الأموية القرشية أيوة قبي ومرقد دمنا زوجتي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا السحابي ارتد شريعة الإسلام كبو كبحي وتنصر ومات نصرانيا وحان كله دول استاجدوا أن صحابي الذي هجري عبد الله بن خطل يسونا ولو أننا لو إن نحن صحابة رسول الله محمد أكثر كودو ويردوا بين وحن دورنا في كتب أهل السنة والجماعة خاصة صحيحين كنت دول استاجنوا إن دول استاجنوا أن أركضوا أن صحابة رسول الله محمد جبي أهم إلا قليل عدد أمويانه أو فرها لو في كرم ويانه إن يردوا بين لكن جدال ينقل جندونا بإذن الله الباري sidoo kale waxa weeya waxa banaan iyadna luqada xageeda idlaaqu saahibi ala man la yattafiqu i'tiqadan aw milla laba qof on i'tiqadka iyo millada diinta intaba aan waxa weeyaan saaxiib aan walaalku ahayn ayaa waxay noqon karaan saaxiib labada qof ma aha millada saaxiibku ma aha اعتقاد كان صاحبكم معها وسيدا حتى قال لي أن سوشكني رسول الله محمد وإلهي صلى الله عليه وآله وسلم وما صاحبكم بمجنون مركا لفظا لليه صاحب وحكفي عن إن اللي يراهدو متبعون إن اللي أديكسدو لفظا متبعون إن اللي أديكسدو وأن أركض أن لفظا متبعة سيديب وقفي عن يهي لفظا كلا لفظا اتباع أبو إلهي جل وعلا قرآن كيس أكو أماني لكن لفظ صاحب وأمانة وشريعة نحن أكلها ذمي أما وحويا مدحي habayaraatee ma ay jirto mana keenayso waxaan sii guda gali doonaa biidin illaahi albaari oo aan ku sii socon doonaa raggii la dhihi jiray gaalada ilaahay noocaas ku tilmaamay saxaabadiina rasuulullaahi maxamed ilaahay baa ku tilmaamo istilaaxa la yimid saxaabadii rasuulullaahi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam isaga ayaa yiri asxaabtaydii yiri laakiin lafdigaas suxbada ah inuusan keenaynin annaga agtayada wax la yiraahdo madxi amaan iyo wax la yiraahdo dhammi oo cay ah ayaa labaduba sugan بجنب القرآن دليل يرهدان فيرنو إلهي القرآن كيس كريم كوحي نوجو عدي نبي الله يوسف لبنن أو صاحب الله أو السجن حبسك كل جري نبي الله يوسف مركب محور يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار حقيقة أشهد الله فيري أن أنا وصاحبتي قفك أنا أن إسنقاني قال علاقات كأن لنا هي صاحب بالغو إطلاقا قفك مؤمن أنا أن وضع سعنو صاحب بالغو إطلاقا إن إسكو عقيدة النهي كان كلا مؤمن كأن أنا إسكو عقيدة أن هين إسونا وحلغو إطلاقا صاحب بالغو إطلاقا إذن أنا أكتيدو وح صاحب اللي هذا أو صحبتي أي سجنت هاي أو لديه كر أكتيدا معيار كالشرع أمرك الله فيريو وقفكو أي تاريخ ديسا أي سيرة ديسو
انت بأي وناكسناتي عند رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأن لا إيمان يوم مالمها كمد هبيرته وحكيني كرو كفري أما فسقي أما إلحاد وشريعة الإسلام كاللوغة بحكره إنه سنقف كاس لا إيمان أيا أنك أكتر يدا لغم ميزاما قف كصحابي هذا إنه إن يرفير إنه صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم رجع اللي جدهدو dhibaatooyin badan baa dhaxmartay nabigana ay u geysteen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haday noqoto inda wafaatihi geeridiisa agteedii hadii ay noqoto qabla wafaatihi hadii ay noqoto bacda wafaatihi inta ka bacdi kamaynan hadhina waxay la sii qaabileen usradiisii iyo gurigiisii oo ilaahay ina amray jalla wa ala lisaani rasuulihi al-a'zam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inaan iyaga raacno iyaga inaan ku badbaadi doono waayo nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aalu baytkiisu waa saxaabo waa saaxiibadii هذا نوع حويه وآل بيت النمذي هذا نوع بدعة أكثر كود وحويا وبدعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرقا استقع وحويا النبي وكتل ما أهل البيت اللهم هؤلاء أهل بيتي الحديث صحيح مسلم يا غير كيب أوجري اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهر عنهم الرجس أهل البيت مركي سودكتي آية حويا آية التطهير مركي سودكتي وقرق أم السلمة أي النبي كسقنا صلى الله عليه وآله وسلم مركو قرق أم السلمة كسقنا أيضا سودكتي النبي وحو ياري إمام علي إمام الحسن إمام الحسين سلام الله عليهم يا أمنا فاطمة الزهرة البطول صلوات الله وسلامه عليها مركو ياري أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيسي حديث المرض حديث كها يقيسي كد ذي أوه يا مركز وحول اللهم هؤلاء أهل بيتي أم السلمة أمهات المؤمنين كم ذا يا وحيت رضي الله عنها يا رسول الله وحيت جو أن أنقله نبي وحولي أنت على مكانك وأنت على خير مكانك هذا إسكال لازم هل كأجنا كسقنا وخير أيات كسقنا تاي ويا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مركو فرتكو في يحول اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاستي فطهر عنهم الرجس أهل البيت فطهر عنهم الرجس أهل البيت كوا إيجا النبي وحون أمري إيجا اتباع عوضة إيجا إن لراعو إيجا هدي أي نراعنا إيجا كتاب كقرآن كأن تمسقنا إن الدنيا ده إيا آخرا من نبأين باديو بين أو النبي وحول صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح مسلم iyo waxa weeyaan tirmidhi iyo ibn maajah iyo xitaa sheekh al-albani oo ulama salafiyya oo ulama wahabiyya kamid ah oo saxiix yahay kitabkiisa loo yaqaan irwa al-ghalil iyo kitabkiisa jaami'u saghirka iga kitabkiisa jaami'u saghirka iyo kitabkiisa loo yaqaan as-silsila as-sahiha intaba nabiga ayaa wuxuu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inni tarikun fiikum khalifatayn ما أنت مسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي أنا وحن إذن كتجي لبع العلوس لبضا إيجا أهو كلا كتابك إلهي يعترض إذا أهل بيتك إيجا ما أنت مسكتم بهما لن تضلوا بعدي لبضا إيجا هدي القبستان قدالش إذا ما باديو بيسان كتاب الله وعترتي أهل بيتي رواية كلا وحوله أحدهما أكبر من الآخر لبضا إيجا متكود متك كلا يكويه أهل بيتك يا كتابك القرآن كان متكود متك كلا يكويه حديثك إذا النبي وحده صلى الله عليه ولن يتفرق حتى يردا علي الحوض لبدا إيجا أمك لا تجهيان إلى أتكسو أرورتان أنيجا حوض كيجي أتكسو أرورتان عجيب إذا أنه هدانا علماء الشيعة وحانو تمسكني كتاب كي قرآن كأها إيو مذهب كيجي أو نقضي مذهب العترة ومذهب أهل البيت والنبي يقول ولن يتفرق كتاب كقرآن كي هي حديث كي مكلة تجهيان كتاب كقرآن كي مكلة تجهيان يا أهل البيت كي إلى أي كجسو أروران أنا حوض كي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنجا وحوي مذهب كيجو ومذهب نوع كل سنة صحابة الصومعة فكر أن كتبنا أي جرت أنجو وأنا فكر كي أن هري بهذا أسوع عديي أو معيار كشرع ميزان كأن أبن رجعنا وحيت هاي إني وناك سنتي قف كان إسجع السحبة ديسي إن إسجع طريقي ورسول الله محمد أمري أهيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتمسك بكتاب الله ومذهب العترة صحابي الأمري إنه هل كان أنتو قبسدي وكو جيريودي وإما هدوسا قبسنين أو ليمة شقاق وحن لنا يقفك إسجع شقاق بكل عي أيضا قرآن كأبونا كل عي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره إلهي القرآن كيسا وحكو له رسولك قفك خلافه هنونك أنتو أعد هذي بعد جد ويتبع غير سبيل المؤمنين مؤمنين توددوا وضعان أهينا مري نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره أي إلهي القرآن كيسا كريم كاكو عدي waxaa kale oo qofka uu ku dhacay annaga agtayada
إن أسو حجج تجي وايي أنا إيمان وايي رسول الله محمد أما أو خلافه ستوس وديدي يو كتاب كي قرآن كأها وإلهي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أبو إلهي جل وعلا أوليه أوكي قفك هدي إلهي رسولك سأنتي أيرين استجابة رب اللي جواي أما رسولك وكعاسي عسيانك خلي سوى لك لقاد بابك عسيانك بابك عسيانك خلي سوى لك لقادي وإلهي رسولك سقفك وكعاسي عندنا وحان لنا هي قفك إسقاء قف أي صحبة سو وناق سنتين معها وحان اللي لا هذا هي سير كيس يا تاريخ ذيس علماء الإسلام كقرآن لماذا جنبي بقى يا لا هذا هي هذا صحبة ذيس يا تاريخ سديس أي وناق سنتين فإنه هو مؤمن صالح سحابي وإلا هدينا وناق سنانين أكتر نظم معها قفك إسقاء قف أي صحبة سو وناق سنتين وناقي سنة أوتام نقضي معها معيار كشرعي أنه وحكم ميزامي إنه أيامتك إسقاء وحنا كقاعدنا إنه معيار كأنجدال أو نقولنا كتابك قرآن كأ يا حديث كصحيح اللي بدأ جنبي بقى يسكوا فقسينهن أصحي وحوي رسول الله محمد كسبنا هذا صلى الله عليه وآله وسلم كهذا كسبنا هذا عندنا وحلنا هذا هو الصحابي وهذا هو مؤمن وحويا لكن قفك إسقع مدي وحي أو أصيبي بميزانك أنه أنصاري النوية وبالله توفيق. أحسنت هاي عبد الرشيد هاي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلاة الله وسلامه على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد بإذن الله الباري سيد مركب هذا الذين شاقي وحا اللي يلاهدو موضوعنا كساب سنيه وحا اللي يلاهدو دفاع الصحابة إيوه فضلك إليهين إيوه وحا اللي يلاهدو وناقا إليهين إيوه وحا يمضى أسوى قبتين inta marka mawduucaana bilaabinin horta marka horeysa waxaan dib u yar celin lahaa macnaha qoliyahan waxaan ku yarahay aan ku rafaadsanahay gabadha caleynta iyo mawduucka bixitaanka iyo waxa maartay waxa aan jirin ee loo nisbaynayo dadka helo cilmiga hadii ma taqaan waxa la yiraahdo hadda waxaan yara baraarujin la jeclaysan in la baraarujiyo maalintii u horeyso aan waqti u helinin hal eray mise laba eray oo ku saabsanaa erayga ku saabsanaada wuxuu ahaa waxa la yiraahdo mawduuci hore weeyaan wadaad uu sheegay wuxuu kamid yahay ahlu sunnah jaaniski marka isagu waqtigu ku dhamaaday marka jaaniskaas uma aan helin marka wadaad la yiraahdo buu dhahay Suleymaan ibn Ibrahim al-Qandusi al-Hanafi baa jira buu dhahay ahlu sunnah oo sheegay nimanka la yiraahdo waxa la yiraahdo inay kamid yihiin 12 inay xaq yihiin oo ahlu sunnuhu qabaan oo xadiis rasuulka kaleey salaatu wasalaam ay ku ansaxday marka arintaas waxaan rabaa inaan yarahay tacqiibiyo intaan hadir mawduucdiisa soo gudbino waxaan leeyahay ninka noocaas la sheegay wuxuu dhintay qarniga afraad horta markuu soo gali rabay buu dhintay كوني أفر بقول سنة النبي عليه الصلاة والسلام كدم بي كو وأنك هرت نيكو ليه وانين وذا ده محدثين تأهل صناع كتيرة مركا هرت قلب كاساس وقاعدين وصروح حبك كتيرين والطلبات نينك صحوها نين واحتقان الشاعي يبوها إسلام مركان الرافضي يبوها طيب وتصدح هذا وحوها نين حلولية من كان الحلولية الاتحاد والحلولية عقيدة من كان مسمى وفلسفي يبوها وحوها نين آمن سن واحد اللي يدهنو أدونك وحد شروع دن بني آدم iyo jinka iyo xayawaanka iyo miisaska kulligood waa wada ilaahay kulligood in aaminsan buu ahaa fa subhanallahi aan qowlihi markaas wuxuu dhahay ninka noocaas oo ahlu sunnah baa waxa asqiray waxa la wixii adduunka jiro dhan ilaahay buu dhahay ilaahay baa jiray buu dhahay qayb buu iska jiray nabi maxamed buu mataqaana ka abuuray nabi maxamedna qayb baa laga sii jiray adduunka inta kale laga abuuray wixii adduunka jiro dhan wixii ilaahay laga soo wada jiray saasa ku taalay marka arintaas waan tacqiibinayay baraarugaas yar baan rabay inaan meesha ku sheego inta haddaan taa kaga gudbo wadaadku waxa la yiraahdo wadaarkaseen ma taqaana waxa la yiraahdo taariifki xitaa taariif cilmiyeysan ma garanaysaa waxa la yiraahdo iyo midkii la isku yaqaanay kutubta ahlu sunnah iyo kutubta ahlu shiica ku taalay dhamaantood uu ka soo tagay ma garanaysaa sababta mawduuci bu khilaafada ahlu bayt buu iska aadayba saxaaban ka hadlanay umuuman ahlu bayt buu ka hadlay maanta oo dhan hadii marka ma taqaana waxa la yiraahdo taariifku waan soo noqonayaa shubahaadkiisa ma taqaana waxa ku saabsan in la yiraahdo waxa loo taariifiyo horta marka cilmiyan laga hadlayo waxa luuqatan maxaa lagu yiraahdaa ko istilaaxana maxaa lagu yiraahdaa luuqatan iyo istilaaxan midna muusan sheeginin أنا شيء دون إن شاء الله ودي لهاين قصة ما تقاني صحيح مسلم ما تقاني أوتيري قصة وحده بحاجة تقول كتابك صحيح مسلم كقطع الله وما ركتي وحلا ليله هذا شيء قصة ومديك إن كم ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابة دي سي إن يدنت منافقين أي كتيرين سيدا سوي معنا أرنت أصلا مركب حرام ما تقاني بالله عليك إن ما تقاني حاجة يرى أمبراروتشيو
markuu horeysa xadiiska uu sheegay uu saxiix muslim ku yaalaada wuxuu leeyahay saxaabadeeda waxa kamid ah bal ila dhageysta munaafiqiin baa kamid ah xadiiska macnaha u jeedo iyo waxa uu ka hadlay u fiirso saxiix muslim raqamka 2779 buu xadiisku ma taqaanay isagu uu soo qaatay uu dalshanayo ku yaala maqsuudkuna waxa weeyaan rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri xadiiska isagoo ma taqaanay saa sheegay rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri fi asxaabi waxaa ka mid ah 12 munaafiqan baa ku jira 12 munaafiqiin baa ku dhex jooga oo dhex degan haye fiihim 8 baa ka mid ah la yadkhuluna jannata hatta yarjil jawnu fi samil khiyat rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri fi buu yiri ma uusan dhihinin min asxaabi arintaas macnaheedana min iyo fi mawaanicda u kala horta u dhaxaysa fawaariqda u dhaxaysa wa asaasiyaadka qofka talabatul cilmi uu kamid yahay hadaad garan weyd hadii hadir lagu yiraahdo ma taqaanay wax la yiraahdo ibliis kaana he fi saxaabati ibliis kaana fi saxaaba hadii lagu yiraahdo maxaad ka qaadanaysaa macnaha meeshay joogaan buu joogay meeshay sumrada macnaha kooxdooda ku dhex jiray ee ma way kamid yihiin ba meesha ku taala bilaa calaykum يعني waxa loo baahan yahay taariifka ma taqaanay marka mantiqiyan iyo cilmiyan inaad u hadasho rasuulku wuxuu kaleey salaatu wasalaam waxa dhex jooga saxaabadeeda 12 munaafiq aan ka socdeen de waxa kamida ubay ibn salul baa kamida julaas baa kamida yaana ragaas oo dhan baa kamida tayib culimadu maxay ku tafsiiriyeen marka culimadu waxay ku tafsiiriyeen xadiiskaas waa inaad muhiim ogaataan ibn jawsi baa wuxuu leeyahay dadka mubtadiinta cilmiga aan aqoonin xadiiska noocaas ma fahmaan huna marka waa ishaaratan u fiirsada hadda qowlaadka macnaha maxsuub macneeyay iyo culimadu sileeyeen ibn jawsi wuxuu leeyahay hada alxadiis yushkilu ala almubtadiin dadka mubtadiinta cilmiga bilowga ku ah xadiiskaas uu wareeriyay macnaha ma yaqaanaan macnihiisa ma yaqaanaan لأن أهل العقبة إذا أطلقوا بكلية ذاتك أهل العقبة يكون احترام باي وذاتك سؤال جوجين ذاتك أهل العقبة هانا ما هي وحين الشيخين ومرك رسولك عليه الصلاة والسلام وآذي تبوك مركو آذي ذاتك تبوك آذي بحال كتير بالله ذات مال أنت عقبة أنت سكور رصدين الشرعي ذاتك بمرك رسولك عليه الصلاة والسلام وشيخ حكي الله بيتون منافق بكتيري طيب مركا حديثك بالله عليكم ما تقارن معناها وكهلا يمحوية هي حلق النبي محمد منافقين باتشوجي إلهي وقراك سكو عدي صح ما صحابي هين ما كمد ما يسنهين صح محاول دليلها وحاول دليلها إن سنة هالرواية كورين رسولك عليه الصلاة والسلام وحن كلو يدين شيء قدنا واحد اللي هذا أسماء ذنا وبعدين ترنا يهدي الله سبحانه وتعالى وقت ويقسمه ترى أنت عنك قبح مرك وحن كلو يسوي قد بيا واحد اللي هذا وحيري مركو موضوع كبح يبقى وحيري رسولك عليه الصلاة والسلام بقى وحيري يعني وحن إنك قد تجي واحد اللي هذا كتاب الله إيو عترتي ما إن تمسكتم بهما بوري بهما حاجة كتالله بالله عليكم يعني بين واي صحيح مسلم يكون تلا بوري بل كسر صار صحيح مسلم بهما بكون تلا وحبك كمان جيران وحكون تلا به ما إن تمسكتم أنت هذا هيستان به كتابك إلهي سبحانه وتعالى أنت هذا هيستان ها إيو وعترتي إيو أهل البيت كان حقوق ذي حق ذا أتقرن الإنسان وحلا يتقع عمل فؤاد إلى أن الإنسان حقوق ذا ما الله ما يسان دواسي أهل السنة ليه صومه كتابك إلهي السنة دي سروات كان دواتي هذا وسحسي وحلي هذا كتاب الله وسنتي إيو وعترتي صدح لبس كدرو كتابك إلهي إيو سنة رسولك عليه الصلاة والسلام إيو وحلي هذا إيو أهل بيتك وحقوق ذو الله قرطو سيدا أهل سنها إيو سيدا الشعادة آن لقالي سنين إلا شعادي وانصوم برنا متقانا هدي وقت نصف من ولتك دوناي أما وحي كصابسا يا أهل بيتك حاسس كيسو كمد ميهين موضوعين الضمواي وحي متقانا وحلي هذا ماشي اسكو مجرتو انت هدانك قدبو waxaan u gudbayaa biidni illaahi albaari waxa la yiraahdo yaani saxaabada ridwaanullaahi calayhim saxaabada taariifkooda marka koowaad in la isla garto arintaas waa muhiim weeyaan saxaabada maxaa la yiraahdaa saxaabi marka ma taqaan iga dhageysta walaalayaal waxa uu leeyahay culimadu say ma taqaan waxa la yiraahdo ay dhamaantood ay mareen hatta kuwa shiicada ma taqaana iyo waxa la yiraahdo iyo kuwa ahlu sunnaha iyo kuwa yaani dhamaantood waxay leeyihiin saxaabada ridwaanullaahi ta'ala calayhim saxaabiga waxa la yiraahdaa luqada waa ismu faacil weey man sahiba yashabu fa huwa saahibu wa yuqalu fi al-jam'i ashab as-sahib ما تقانا وحاكنا والصحبة ولا هذا والصحام وحل دها والصحبان بلا هذا طيب عرفي أهانا وقفك إن بدن عدو الشوكتان بساحب لي معناها قف هرت صاحب حالي قف كان إير عدو الشوكتان إسرائيل إسكول لك درتين دقيقتها هاتو هل ساعها هاتو وحل لي هذا مدبر هاتو بلا هاتو وحل لي هذا صحابة لغة من كان الله يلسع عرفي هان لكن وحل قف كان إسعش هنا إبدا ود الشوكتين إسكول حملنتين شقوين كنا نحمرين وحيلا عرفي هان وحيسال لي طيب أما لكن اصطلاحا وحويان محدثين تيددك علم الحديث كي الصحابة اللي يجلس أهلين يقانوا وحويان من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قفك النبي عليه الصلاة والسلام لكل مي يغضط رسولك سوى سوتشي هذا مؤمنا به سوى رسولك رميسا بعد بعثته مرك رسولك الله صاري إيه رسولك إسلام إلهي وحي كسود شيء حال حياة أنت رسولك أنولا ومات على الإيمان
إسلام نمر كودنتي هذا هو الصحابي إمسا قيد با ميشا كوجو جرا marka qofkii munaafiq ahaa isagu ma soo galay mu'min baan ka hadlay mu'minan baan ka hadlanaa ma soo galay qofkii kadaalka ridoobay ma soo galay wama ta'ala ala al-iiman baan ku leenahay ma soo galay yaana rasuulka kaleey salaatu wasalaam qabla bi'thatihi qofkii la kulmay ma soo galay طيب qofkii rasuulka intii la soo diray oo Nawfal ibn Warqa ugu horeeyo Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu ta'ala ku xigo oo Ali ibn Abi Talib kamid yahay oo Khadija bint Khuwaylid kamid tahay dadkaas asxaab la yiraahdo yaana waa ina taariifka xataa cilmiysan waa ina sidaas u garatid weeyaan waxa marka meesha ku jira xataa qofkii intuu diinta islaamka ka baxo ka bacdina diinta ku soo laabta islaamnimadiisna ay hagaagsanaato sawaan fi xala xayaati nabi ha ku soo noqdo ama bacda geerina rasuulka kaleey salaatu wasalaam geeriska bacda ha ku soo noqdee horta qofkaas asxaab la yiraahdaa waa muhiim marka horta ina saa ula socotaan ixtiraaxaas asaa barataan waxaan kale oo mataqaana waxa la yiraahdaa aan baraarujinaa sida Abdullah ibn Abi Sarh oo kale baa kamida waa muhiim marka arinta noocaas oo kale in qofku saa u garto mataqaana tacriifka marka laga hadlayo fadliga marka ay leeyihiin maxaa kamid marka fadliga marka walaalayaal ay leeyihiin saxaabada wax la soo koobi kareema saxaabadu waxay leedahay fadli aad iyo aad fara badan fadligeedan Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka ku sheegay suurado fara badan buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala buu mataqaana ay uu qaada dhigay oo ku sheegay 100 aayadood miyaan idhaahdo 100 aayadood يعني wax la soo koobi kareema shaacadu waxa la yaa tacriifka ay ku leedahay waan u tagi doonaa hadii Ilaahay naftiisa subhanahu wa ta'ala inoo daay waan taxqiijin doonaa waan sheegi doonaa طيب الله سبحانه وتعالى وحمركو كهلي صحابه ما تقانا ايمانكودا واكيلها ما تقانا محمد رسول الله نبي محمد عليه الصلاه والسلام رسولك الهي والذين معه كو لا جيره الهي انه اسلامنimo u sugayo oo wanaag u sugayo oo ay jannayhiin oo ay xaqiihiin oo ay iimaanyihiin oo ay difaac iyo ku dayshay mudayihiin baan idin sheegay 100 aayadood kama gaari kara marka waxaan ka gaaradin sheego محمد رسول الله بالله سبحانه وتعالى والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم سؤال marka hoosta ka xariiq waxay tahay والذين معه من مع النبي سؤال ويان ربنا كجواب من مع النبي طيب إلهي سبحانه وتعالى وكا أمانة متقانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر سجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار بالله عليك وصلك حريقه إلهي سبحانه وتعالى عده قال كو على قلنا يا واي تصالها جيد حولها وحويان توراة إنجيل بوحكوا لي إن يهين سيد جيد يرى الصباحي إلا من مدة أوسى إسلامي صوما جيد يرى الصباحي وهذا نرد راضي دبتنا جيد كوينادي أتكاضي وسلكيس كو استاجي إلهي تصالها الصحابة وحوق بحنا يا ليغيظ إنه إلهي كو على قليو إيجا بهم الصحابة الكفار قالوا هنا هوست كحري وقف الصحابة وحناق إلهي وحكيري وعرض إلهي سبحانه وتعالى حكيري وقال بإلهي سبحانه وتعالى كيري ليغيظ بهم الكفار هوست كحريق وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحوب الله قاضي ما تقاني صحابة صحوب الله قاضي دم بالداف إيه وحلي أجر آدي آدوين وإلهي سبحانه وتعالى وبلن قاضي طيب عدة مركة إلهي بلنك وقاضي وقالوا ورعدة بالله عليكم معناه وحارب إن إذن إذا ظهرت أنت أنا هلك أسي قد بني آدي لفه أنت هنا شيعاد وحي ليهين وحل إلى هذا الصحابة وقالوا هي إن الله عرضنا وواجب بله إسلام نمضى الله ما صقله إلا آد صحابة عيد شاعب من نقول كرتيد بقى ضروريات المذهب حيكون له حكم ذا إنه قفك متقانا يا صحابة وقالوا وإلهي بقى بلن قاضي إنه يهلو جنيهين أو متأهلوا خيرهين وحبك مجران بإليهن وحاسوا وحبك مجران الله سبحانه وتعالى حكى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم إلهي بقى وحوق هذه وحي قلبي وذا كتشروا إيماني إسلام نما ورآوي إلهي القرآن كيسحوك مجران مياه هاي فأنزل السكينة عليهم وأعطاهم فتحا قريبا إلهي بقى سكينة كسودتشي سكينة محيتها إلهي ما أنت رسول أشوا ويدوك جواب ما هي سكينة محلية هذا أنا إذن كدري أنا إذن كجوابي سكينة القرآن كقاعدة قاضبة كل ما في القرآن أو سكينة أو حوي اطمئنان القلب سيدي سببا إيمانك قلبك إنه إلهي سكو حصريو إيمان إيه مؤمن ما إلهي قلبك كوجليو بورت وحال لي هذا محي بوحال لي هذا متقانا يا سكينة القرآن كلوين هذا هل آية أو سورة البقرة كجرتها بو خلاف كتاجين هي مسداس بالولد كذا مسواميا الله سبحانه وتعالى حكى له يفلق ولا عليه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ورتت كان جنة كوارية إلهي يحول وأعد لهم جنات جنوي بألا دياري خالدين فيها أبدا ولقوا كوارية ذلك الفوز العظيم وحبك من جرام إليه بالله عليك تتك النوع عاس تتك النوع عاس بحويان بحي كلين دين بانو كعلنا آل بيت كانوا عايسنا دين بارو عايسنا وحلاقيها بحد بحي كلين يعني الله يبين بحتى معلمين وتقانين أو ما تقانين أليدهين طيب
marka sii wad aayadahaas macnaha way fara badan yihiin dee kama gaari karayo ilaahay subxaana wa tacaala waa mid kale laqad taaba allahu cala alnabiyi walmuhaajiriin walansaar الذين اتبعوه في ساعة العسر أي في ساعة العسرة يعني وتدقال كتبوا إلهي كهلا من بعد ما كاد يسيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم markay dhibkii la kulmeen oo gaajoodeen baa qaarkood waxay santaan rasuulka ma iskaga hadhaan markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala falligiisa markaas wuxuu leeyahay thumma taaba alayhim ay ilaahay baa ku sugay innahu bihim ra'uuf rahim wuu naxariisanaya waxay dhaheen waxba kama jiraan bay dhaheen waxaas ilaahay uu sheegay oo dhan waxba kama jiraan hay saxaabadu waa ahlu naar waa gaalo dayib wuxuu yidhi waxa la yidhaahdo arrinta kale oo muhiimadda mudan waxay tahay in lagu baraarugo mudan rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu aan dhibaato aan kala hor imaanin aayada quraan iska soo delishaday waxaan rabaa horta quraanka markaad iska delishanaysid yaa saan ku fasiray ma ilaahay baa saan ku fasiray mise nabi maxamed ku fasiray mise saxaabada ku fasirtay mise luqadaad ku garanaysaa aayadda horta ma sheegin saan ku fasirtay nabi maxamedna ma hayo saxaabana iska badaa luqadda carabiga hadduu yidhaahdo qawaacid aan ku siiyo qawaacid qaado horta quraanku siisa horta waa carabi alquraanu carabiyun fayuslaku bihi maslaka alcarabi fi taqriiri macaaniha quraanku horta waa carabi markuu hadduu quraanku carabi u yahay waxa quraanka lala maraa maslaka carabtu ay la martay inay luqadeeda iyo macaanideeda ay ku taqriiriso ay la martay cidda markaa ku fasirtay nimankii gaalada ahaa Abu Jahl iyo Abu Lahab baa waxay ahaayeen saxaaba rasuul saan yaa ku fasiray luqadan yaa saas u yaqaanay qof meesha kula fadhiistay umbu ahaa qaacida kale aan kugu daray wa kullu macnan qaacidadaasna qaado majaanan waliba wa kullu macnan mustanbadu min alqur'ani yacnaha macna kasta oo quraanka laga soo dhexdo laga soo dhexbaxay غير جار على لسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء بالغ يعناها ما أهن wax kasta oo ma taqaanaay laga keenay quraanka isla markaana luqadda carabiga waxay faa'iideynaysaa aan faa'iideynaynin waxaas culumta quraanka lagu ma tiriyo quraankan yaa saa ku fasiray sax waa quraan ilaahi inay saxaaba yihiin baa tiri Abu Jahl iyo ma taqaana iyo dadka la midka ah Abu Jahl iyo horta iyagu Abu Lahab waxay ka aaminsan yihiin Abu Lahab waxay ka aaminsan yihiin inuu islaam yahay janna yahay marka waxaad su'aal rasmi waxa rabaa cilmiyeysan in laga doodo hada billahi tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala alam شكرا احسنت وأحسنت يا عبد الرشيد هذا وحان أقول بينا سؤاله إن أنا سؤال هذا كويدينه وحي أتشكتين شيخ فرح وحات تري هدائي لبيه طبعا صحابة ذي وحكوا جرا لبيه طبعا نن ومارت الجنة أي سديت كم ذا إنا قلينين شيخ عبد الرشيد حديث كاس وكوفة سري أو حجري حديث كان عدة كل حجرتها إننا الصحابة هاين أيو قوت المامي أديك وحن ربع هرت كوم ها عضينها إن رجاسي أنا يهين صحابة إن هايين وصحابة النبي إن هايين تاج ولا غيرها إن يقنعنت هذا وحكى له هذا يسوي تعريفي لغة واصطلاحا وتعريفي أظن ماذا نوشيجن لغة يعني ما أعرف واحد تقنان لغة عربية حاجات كسوق غلطانه إذا تانا بالنوجو عري لغة واصطلاحا واحد تقنان صحابي بل لبدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله دائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين ميدن مقلين سؤاله ويدي وذات كان ربائنا كجواب شعر باوحوها سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول وحول هدي أد كجاهلو ذي لبنن أو وحي هاي قبل وذا شو كان سنة يسأل أنك يقوليها هذا دحنا أن هذا كجاهلو ذي ومد ويدي بولي ما أهبوا لقف أهل العلم يقفان أهل العلم أهين وحسما معها لقد وحانك أري تعني وحلول جدا لقد عربي الملازمة والمخالطة والمعاشرة أي اللي هذا آد فهم لقد وحل اللي هذا آد فهم شيخ آد فهم هرينا وانو شيخ الملازمة والمخالطة والمعاشرة أي اللغة العربية اللي يقول هذا صاحب النماذج مر لبات بنكو وسع علن مجانا سيادو فهمتان صحابي وحال إلى هذا من لزم النبي صلى الله عليه من آمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولزم ولم يخالف يوما واحدا هذا هو الصحابي الحقيق عرفنا وان كوغو شيغي دونا باذن الله الباري هورينا وان اوغو جوابي ما ادن اوغين ودادku waxaan rabaa oo kale inuu wax yar oo umada horteeda ku been abuurto oo ka jaahiloobay inaan halkan ku cadeeyo al-Hafiz Sulaiman al-Qanduzi wa saahibu yanabi' al-mawadda طبقات الحنفية كثير نن معناها wax ka garan hayaba ma aha waa nin intuu wax meel ka maqlay ama wuxuu soo dhageystay inuu iska tuuro damcay طبقات الحنفية kamid yahay haduusan طبقات الحنفية uusan ku jirin jiilki dambe طبقات الحنفية والأول بوحيلاتها طبقات الشيعة أما أعيان الشيعة أي هذه وحد آديسة طبقات الشافعية وحد آديسة طبقات الحنابلة طبقات الشافعية وكم دي هل كا وحي كتسنيسا تأثير كعلم جولها إني آدي يريها علم وحل إلى هذا إمامك ويناي أبو مسعود لديه جري ورئ أندلسها وحويا السلف كأنه النقطة كل وادي يا بيت بوسكالها والحيوري
علمه كهد هي موقته هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من آلة تبوري علمه وحويان بوري واسف هندي اللي سميه او تصيب به مقاتل من أردت قفك دونت برتها دونت اللفت مسكح جرات كاد كغدو فانيسو او دمن هي وعرب ان هذا لك ويس او كلو اسبرين هي ودول استاغي ان هلكن ku cadeey munaafiqiinti ba heediyadna taa iyada وكنز ويان بور علمه لا تخاف عليه لسا خفيف الحمل يوجد حيث كنت وحوي منافقينتي وإلهي رسول الله محمد وشيغ ان في اصحابي في ذا ان عربي كنا قلنا اللغه العربيه في ذا وحالي هذا ظرف وي مظروفك اي كوبتين وانغا غريبه هذا انا كوبي سوما في ذا ظرف كان وغريغي او كله مظروفك اي كوبتين وانغا صحابته waxay fiidu ku jirtaa madruufka ay koobtay oo saxaabada rasuulullaahi maxamed daaqilka abi ku jiraan idan hada الرجل قد تبين انه لا علم في علم النحو او في علم الصرف او في اي علم من العلوم تاسي كنت سنيسا marka inuu san uba lahayn ba wax taathir raba waayo in fi ashabi buu asxaabtayda dhaxdeeda waxa kamida fiiri 12 منافقا قال موسى له النبي 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط هل كان وحا كبربرتي شوبدي aadka u tabarta yarayd oo ay noqotay ukun kaara uu ku istaago kale waxaan fiirinaynaa biidin illaahi albaari xadiidkii la dhihi jiray xadiithul itra oo uu yiri waxaan jeclaan lahaa waan soo dhigi biidin illaahi albaari in ay xadiidka la ila aqriyo cid walbana ay ogaato waxaan u horeysiinayaa kutubtaas oo dhan ay ku wada qoran tahay xadiidka xadiithul itra la yiraahdo si ay kaamiradu u ogaato xadiidka isaga ah inta kutub ee halkan ah ee fi kutubi ahli sunnati wal jamaa waxaan u horeysiinayaa biidin illaahi albaari ninka loo yaqaano muslim baan u horeysiinayaa حديث الثقلين في كتب أهل السنة والجماعة صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رقمكم حديثكم وحوي ولا بكون يا أفر بقول يو سديد ويا حديثكم رقم كيس وحول النبي صلى الله عليه وسلم سعد حديثك زيد بن أرقم حديث كيس وحوله النبي وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما لبضع إياك أمتكوت وكتاب الله فيه الهدى والنور وحث على كتاب الله فخذوا بكتاب الله النبي كذب وحوري وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواية الإمام مسلم مهمة ديض وانتهى إيضا مدون هي إنا قصي دير هذا رواية كلام وحندول استاقي دونا أحمد بن حنبل نوحى ويا كتاب كيس مسند كأ وحكورنا يا حديث أبي سعيد الخضري سو حديثك أسو سعودو وحولاهي وزيد بن أرقم لفتيسة إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر إمام أحمد بن حنبل مالك لك ديسان بوكو كاني أو الفات لك ديسان وصحابته إلى ذاي أو يكورين يعني حديث كأيوكو كاني إني تارك فيكم الثقلين أحدهما كتاب الله أحدهما أكبر من الآخر ورواية أحدهما متكود كتاب الله يقول يمد رواية كلنا وحوله أحدهما أكبر من الآخر متكود متك كلا أيوكوين يهي وكتاب الله أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود بين السماء إلى الأرض إيو عترتي أهل بيتي ولن يتفرقا إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حمل ممدود بين السماء والأرض وعترة أهل بيتي وإنهما لبدا يقع لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض معناها روايوينكو سيده اي اوكلا قديسان يهن الفاده اي اوغو يمادين ما ربنا وحان ربنا امام البيهقي نينكا لو يقانو من ائمه اهل السنه والجماعه اللي يدهو وكمده وحو كسو ارورنها كتابكيسا سننكا كتابكيسا الاعتقاد باب وحولهي باب القول في اهل البيت اما في البيت حديث كسو وذا وحولهي واني تارك فيكم الثقلين احدهم اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا بهما رواية كلي وحولها أو كلا فاستمسكوا بكتاب الله وأهل البيت إلا أنا يهدوا بهما ده أو إضافيه يهدوا صنه اللبضة واسكو بذا زمارت تو وحولها فاستمسكوا بهما وهذا نوع وحولها رواية كلا فاستمسكوا بكتاب الله وخذوا به وحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وحوله وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواية أيضا هل كا وحاكو عداتون شهبوين كي آد كأتبرت يرى آد كأجل سناء ودات واسكو إنه سو أروريو إنه ضعني كوكان هل كا كبر برتاي إمام الترمذي ما رمنا كتاب المناقب باب مناقب أهل البيت حديثكم وحوله إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به
رواية به واتني وهذا ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض وحديث حسن وحوليه هدنا غريبة يسقونه هذا وقصعه وحندول استاجد أن مركب وبديهن عدد كي نينك اللو يقانو شيخ الألباني ومن علماء الوهابية وحوليه كتاب كيس اللو يقانو جامع الصغير كمركو كسو قادن هي نبي يا وحول صلى الله عليه وآله وسلم وهو هذا حديث سنة كيس آخر نوديريا وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل البيت فانظروا فيهما كيف تخلفوني فيهما فإنهما لبدا إياك كتاب القرآن يا أهل البيت لن يتفرقا لن تو أبدية واحد قشو كتاب القرآن يا أهل البيت يقول مك لتجهيان حتى يردا علي الحوض بل آذوا فيه هل كان وحقولنا ماتي شهبدي آد كأتبرت يريد صحابتي وحانو ملاين هي لغدي إصلاحي أن كبحيي يونا هل كأيوكو أكا وحان ربا مركا inaan idiin sii caddeeyo istilaaxa dhowr qaybood weeyo oo mafhuum الصحبة في العرف baa iyadna jirto mafhuum الصحبة في القرآن baa jirto mafhuum الصحبة في الحديث baa jirto intaba waxay ku cad yihiin lafdiga qur'aanka iyo lafdiga xadiidka iyo midkan curfiga ah ee caadada loo yaqaano hal baan u daba istaagi doonaa biidni illaahi albaari iyaguna oo waan ku soo noqon hayaa saxaabada rasuulullaahi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam ayaan rabaa baxthi yar oo basiita inaan ka samayno baxthi yar oo basiita إلهي قرآن كيس كريم كجل وعلا وحكوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين بوله رسول الله محمد ما هن إلا رسول إلهي سودري مويانا وحكله وقد خلت من قبله الرسل هرتينا أي رسول رأي تكتي وجيدتي أفإن مات أو قتل هذا النبي يقول أنتو أمل ديله إلهي وحوله صلى الله عليه وسلم انقلبتم على أعقابكم عربيهن ميادو قدوميسا ولو أئمة أهل البيت قيب كم إذا ندول استاجد ونا باللفظ إيجا تفاسير توضو وح أي كم مرين قدال عن مرصد مدة إيجا وحندول استاجد ونا بإذن الله الباري حديث وورينا يو إمام البخاري وحكو ورينا يا جزء أفراد صفحة وحكو ورينا يا سجاشن يا أفر إلى سجاشن يا سجال بكو ورينا يا وحكو سعين هي مركل صفحة بقول إلى كنتن إيو لح بكو ورينا يا جزء صدحات صفحة إلى إمام مسلم وحكو ورينا يا جزء صدحات صفحة صدن يلا بقى يكو ورينا يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم وحوري بينما أنا قائم وقت أنو أنتاجناهي أيا وحويا ودركي سي جندي سي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم وحي سو قابل النبي جماعة يا سو قابل مركان أقون صدو خرج رجل من أيا صوبح بيني وبينهم النجا يا أيا لحظة وحا صوبحي قف باكسر الحبودي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وحولي هلم كالا يا كالا يا كالا يا كالا ولا تجي بدك هلم فقلت وحانده بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أين إلى أين فقال وحور إلى النار نار تآدم والله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت ما شأنهم قال وحور إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة قدال عربه ضد بي أردوبين يقال نمدي أهلك يكون نقدين فرا أرى يخلص منهم عن أملين أما أنو أركا إنو سن كبس سوريبين إلا مثل همل النعم أو مثل همل النعم وجيل يركع إرميدي ترت إيه غوستس وما أعرف كوح يرقى بحث أموياني أنت كلا إني ردوبة هيان هذا هو البخاري وهذا هو مسلم. شكرا. وحي هذا كذا بيا إننا كجد صحابة هذا يسوى مثلا وحين رجع شيء قالوا بيت كنا نقول لي وحي هذا إن مركه الصحابة عموما كهذا الله markii aan saxaabada cadayno waxay tahay iyo iyaga cadaad saasaan u fahansanayna tahay ka bacdi aan gal hadaa ka gudbayna mawduuca insha Allah mas'aladan Sheikh Abdi Rashid hadaad wax ka sheegayso hada uu meesha xadiidka wax kaga laabanayso alu beedka wax kaga laabo inta wixii ka dambeeyay waxaan rabnaa inaan ku istaagno saxaabada inaan ka gudbin shukran bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri awr kalimado ku uu yiri wuxuu dhahay tabaqaatu xanaafiya waxa ku jira wadaadkii qanduusi baa ku jira dhahay kitaabkeebu ku jira halkeebu kaga jira yaa ku sheegay macnaha wadaadka muallifka ee kitaabka tabaqaadka qoray waa keen waxa la yiraahdo wuxuu kala sheegay ma taqaan wuxuu dhahay masalada cilmiga masalada wuxuu ku leeyahay fiihim iyo minhum naxwa ahaan buu khalday buu dhahay wax farqi u dhaxeeya ma jiraan isagoo ama taqaan waxa la yiraahdo qofku aan garanaynin waxa fawaariqda yaani macaani xuruf macaani الحروف حروف المعاني baa la yaasidoba فوارقda ay keenaan iyo waxyaalaha ay keenaan waa laabud qofku ma taqaan markuu diinta islaamka uu isu taagayo ma taqaan in wax ka fahansan yahay war waxaan ku dhigay rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay fi ashaabi min ashaabi meel ku talakeen waxa la yiraahdo qisatul munaafiqiin mudakeen qisatul munaafiqiin soo celiyo ma taqaan waxa la qisatul munaafiqiin waxaan ku culimadu waxay u yaqaanaan ba qofka mubtadi ah inuusan fahmin xadiiskaas
إمام النووي باي كتاب مجموعة كويري أو واحد واحد تقا إن مجوسي بايري أو متقان إن علماء الناس مريا مركا ولقى مارمان قفك إنه متقان وحسين متقان وهلا سي علم يسنا وهلا وحكلوا مهم وما يشوفوا شيء جاي موضوع الصحابة ده كهلني ما أنتوا أنا أهل بيت كأهل بيت كأهل بيت مركا تا الدكتور كيقول مركا وين كجود بيا مركا آية القرآن كا وما محمد إلا رسول قد خلد من قبله رسل آية القرآن كوحيدة هذا شيعادو مركي آية القرآن كا أو حيمشن تلماميسا إن الصحابة في الدوين ورسل كتل مامسا آية وحي كتلنا وما محمد آية رضا قصة الوحيد بارد سودكت سببتك سودكت حتى موسى شيء سببتك سودكتنا وحي أنا دي شيء فإذا إجا قاطع وحويا الصحابة دي وما تقاني قارن الله يبي يا صحابي يا صامري إن أنصاري هم قالنا يا صحابي كلا صامر مركز حتى نبي محمد والد دي مركز ورنا إحنا حتى هدي للدلي وحي كده قال لي كده قال ما كد أنت يجو وحي كده قال نبي محمد يجون كل ما نيا وين صدر دارمية حبك ما تجرى ميدان يو طيب مركا آيات حجابي كشاكتي صحابة دوي ردوبين وسؤال ويجي سؤالي آيات هو التحذير تحذير كسؤالنا يقانا ما وحلات متقان ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إلا متها والتحذير قفك متقان شرك يا لا إله الجنة وكحرمي إلا معناتها معنى والدقنين ويان طيب آيات وحي كلا أو أتهاي من قبأ أتهاي هي فضل وحيوتها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه طيب مركا وحل لي هذا لقى مارمان وحي حديث البخاري بسواق عادي حديث البخاري وحي كلية هي baa waxa jiray ku leeyahay niman xilliga rasuulka kaleey salaatu salaam joogo saxaabadiisa nabi maxamed marka xawdka la geeyo oo ay meel ka soo baxaan baa ma taqaan laga hortagaya ka bacdi markaas waxa lagu oranayaa ma taqaan idinku asxaabtii nabi maxamed kamid matid nabi maxamed oo waa asxaabtaydi markaas waxay gadaal ka keeneen adigu ma ogid daliil buu ku leeyahay ala saxaabada inay gaaloobeen yaani دليل ما هي صحابة دمية معناها مركو ران شيء منافقين تي آياتها كسو دقيقة ترى مقاعد عن كل شيء ورجع سوي رجع لقاها ليه نكلي هذا رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول أها وسلم كان أي كسو دكتي متقان سورة المنافقون هي آيات كمية سورة الحشر هي متقان آيات كلها متقان سورة النور كمية هي آيات كلها بدنا بيكسو دقين باكمية معناها رجع سلو شيء وأنا من رسولك عليه السلام حين لقيت شوقي ويسيسنشري بل هالرواية وأي ليهين oo kutubta ahlu sunnaha ay nabi maxamed ka soo wariyeen ay ku jirta bal soo saaro ninkaas kamid waxa kale kamid Julas ninka bin Suwayd bin Samit baa kamid waxa ku soo degay way yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimat al-kufri baa ku soo degtay yaani waa ninkaas macna dadka uu sheegayo macna waa munaafiqiinta soo dad iska cad weeyaan bijad in la yiraahdo ku jiray bin Uthman bin Amir baa ku jiray waxa ku soo degay wa minhum alladhina yu'duna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun ayadaas ku soo degay macna ma taqaana waxa kale kamid in taqanin Suwayd in la yiraahdo kamid aha ورير أوس حكوا كمان حبيب بن أسعر نين ليه هذا ما تقان وانا نينكي أساسي بكمية هاي ضدك مساجد كمثل الضرار نينكي ما تقان أول ليني إن الله يسوي كمية ويفر بديهن بالله عليك هالكاسكوية الآن وقت يقولوا يقول هاي أنا طبعا لا واحد توثيق من أنا وهايستاي ما تقان وقتي ويقالي يعنها وأصحاب النوع سويا يبل واحد كنتا أبو بكر يا خلفادي يا أهل بدري يا أهل بيعة رضوان يا أهل أصحاب الأحد يا نمانكي ما تقان يا رير خندق يا فتح المكة يعنها ضدك نوع عاسكينا بل وحن ربعنا ندين فائدة بالله عليكم ربعنا نشجع الله سبحانه وتعالى قرآنك وحكيري إلهي سبحانه وتعالى يسوى كهالله ما تقانا أصحاب العسقيمه وديين يهلو جنيهم بالله سبحانه وتعالى وحكيري يعني واعلموا أن فيكم رسول الله أن فيكم رسول الله وحذو قاتان إنه رسولك إلهي لجو إلهي سبحانه وتعالى مركز لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان بل إلى تري بالله عليكم إلهي وحكيري الصحابة دي حبب إليكم الإيمان كو وزينه في قلوبكم لما وكر إليكم الكفر إيه والفسوق والعصيان مد اللحاد إليهن أولئك هم الراشدون إلهي وحكي له أولئك هم الراشدون أولئك هم متقان هم الصادقون أولئك هم المفلحون إلهي سبحانه وتعالى حصل أصحابه متقان يوبانجيا وحيله يحكي من كده ضد نوع عاسه متقان هرت بال وحن اسكو هيسنه إن لا فهمها في عنه صحابة ما وحن اسكو هيسنه وإلهي يا رسولك عليه الصلاة والسلام صادري إيه متقانا إيه dadkii marka diinta ilaahay uu soo diray ma taqaan u gargaaray war bal waxaad iga jawaabtaan aayadaha quraanka iga jawaaba ko aayadaha quraanka ee sugaya fadliga saxaabadu ay leeyihiin waa nuqdo aan rabno in laga jawaabo nimankiina la waa gaala nimankaas taas mid weeyaan mid labaad waxaad ogtihiin saxaabada iyo ahlu beedka u leeyahay haysanaa ahlu beedka waatayna fariido hor ku soo sheegnay inay gaalaysiiyeen la socdo way isguursan jireen way xididi jireen ma taqaan waxa la yiraahdo ilaahay subhanahu wa ta'ala wa kamid aayad quraana kule ma taqaan wala tankixul mushrikiina hatta yu'minu ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم إلهي سبحانه وتعالى وكسي ولا تنكحوا المشركات ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم إلهي سبحانه وتعالى أساسه كله آية في سورة النور الله وكيك لها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك
qofkii haweenaydii ninka saaniga ama wuxuu guursadaa wax taqaan waxa la yiraahdo ninka saaniga islaan saaniyad uu guursadaa koow ama wuxuu guursadaa islaan mushrikada iyaduba aan waxa la yiraahdo aan xaraam ba u arkaynin oo gaalada aayada quraanka hore ilaahay wuxuu ku soo yiri nimanka mushrikiinta dumarkiina muuminiinta ha u guurinina hay si kastaba haydin cajib galiyeen dumarkiina ma taqaana waxa la yiraahdo muuminiinta aan ma taqaanay dumarkiina mushrikiinta aan ha guursanina oo raggiina muuminiinta dumarka mushrikaadka aysan guursanin labada aayad isku macno weey aayad hore waxay tiri wax mushrik la yiraahdo rag iyo dumar toona la guursan aayada mana waxay tiri asal ahaanba qof mushrik ah iyo qof saani ah baa is guursada sidoodaba saddex marka keebay leeyihiin saddex bal mid hay bismillaaheen ma waxay leeyihiin aayadaha quraanka waa been waxba kama jiraan mise waxay leeyihiin nabi maxamed aa mushrik ahaa markuu guursanayay Aisha waxay leeyihiin mushrikada waa gaalad bay leeyihiin kutubta ay ku qoranta way taala mushrikad bay had bay dhaheen nabi maxamed waana guursaday ay ilaahayna sidoo ka yiri marka ma ilaahay baa been sheegaya koow mise nabi maxamed isna mushrik ahaa labo waxay kala yiraahdaan Aisha saaniyad bay hayde mise nabi maxamed isna zaani ahaa saddex saddexdaas iyo wama qaalo min qabl qofkii yiraahdo waa kaafir wa mukhrij min al-millah sooma yaana bal midha bismillaaheen iyagu waxay dhaheen far ducay far habar mid qabsee bal midha ku itaaleen marka waan idin tirinayaa Aisha kaga soo gaabsanayaa ma taqaan reer Alu Sidiq tayib kuwa kala badan way qorayeen oo kutubtooda ku qoran reer Faaruq hadaan u nimaadno reer Faaruq nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam baa isna la xididay Soomaa tayib waxay dhaheen mushrikad bay waxaan soo ogaanay mushrik iyo mu'min inaysan isguursan karin Soomaa aayada ahlu kitaabka ah iyadu khaasiyashay iyadu waa meesheedo qawaacida luqadda carabiga iyo quraanka hadaan isku tadbiiqin karina diinta inaad waa meel baad kaga dhacso wad ka been sheegaysa tayib waxa kale oo isagana sidoo kale ma taqaan ay guursaday ma taqaan Umar bin Khattab wuxuu guursaday Kulthum buu guursaday bint Ali bin Abi Talib marka waxaan haynaa yacnaha mar ahl beedka laga guursaday ma taqaan baa guursaday mar ahl beedka laga guursaday ahlu beedka yaa ka guursaday rasuulka ka guursaday ba taqaan waxa sheegaya waxa ka guursaday Umar baa ka guursaday ma taqaan wax ahl beedka yaa u guuriyay rasuulka ka guursaday Umar baa u guuriyay tayib idan keebad leedihiin waa su'aalaha aan u baahnahay marka leedihiin saxaabadu waa gaalo Umar bin Khattab mushrikiin bay ahaayeen oo Ali ahlu beedkan reer Ali basna ma taqaan wax leeyahay muslimiin bay ahaayeen bal ina su'aashaan ka jawaaba maxay kaga jawaabayaan waa arrin loo baahan la fahmo war nabi maxamed mushrik aha mise zaani bu aha bi abi huwa wa ummi mise zaani bu aha mise waxa leeyahay ma taqaan aayadaha quraanka waa been waxba kama jiraan tayib haddaan soo gudbo musaaharaadka been reer bin umayya wad garanaysaan ma taqaan waa reerka ugu xididka badnaaba reerka ugu xididka badnaa ee aalbeedka la xidid jiray bin umayya ahaay nabiga calayhi salaatu wasalaam horta ka guursaday koow aalbeedka ka guursaday haday mushrikiin gaala ahaayeen xabiib guursaday Soomaa xabiiba anaga ma leenahay la muuminiinta u tahay iyagu ma ogola moogti tayib taasna waa su'aal u baahan laga jawaabo waxa kale u baahan in laga jawaabo oo kale meesha ku jirta yaani xafiidadii ma taqaan Ali ahayd ma taqaan bint Hussein Sakiina gabadhii loo jiray baa sidoo kale ma taqaan waxa guursaday wiilkii ma taqaan awowgu ah ma taqaan Uthman Zayd bin Umar waxa kale ma taqaan guursaday Uthman bin Abi Talib Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu baa labadii gabdhood ee rasuulka guursaday fadhiga dambe inoogu imaan doontaan waxa u qoran labada gabdhood rasuulku ma dhalin dunuurayn baa leeyahay Soomaa maxaa lagu yiraahdaa waxba kama jiraan bay leeyihiin ma waxaadna leedihiin marka meesha isku mid bay ahayd miya yacnaha ma farqi ma jiro dadku wada mushrikiin mise wada saaniyiin mise ilaahay baa been sheegay oo macna quraankan jirin bal mid bismillaah oo mid noo sheega arinta kale oo aan rabo inaan baraarujiyo kale waxay tahay halkan idinkana waan idin qaybin doonaa saxaabadu waxay dhaheen waxba kama jiraan waa gaalo saxaabada Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu warinaya meeqa xadiis buu warinaya horta wuxuu warinayaa 5374 iyo 4 xadiis waxa ku xiga Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala 2000 iyo ma taqaanay 400 dhow xadiis buu warinay waxa kale ku xiga Anas bin Malik 2000 iyo wuxuu warinayaa 2000 iyo 400 iyo 600 iyo 70 buu warinayaa ninka la Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu Anas bin Malik wuxuu warinayaa 2000 iyo 400 xadiis wax ku dhadhow wuxuu warinayaa ma taqaan Aisha ku xigto waxay warinaysaa 2210 xadiis waxa ku xiga Abdullah ibn Abbas wuxuu warinayaa 1660 xadiis waxa soo dhan xadiistaas ma jirta miya xadiistaas billahi alaykum ma jirta miya ee quraanka warin ma jiraan miya waa laga maarmaan macnaha dooda waxay ku saabsan tahay hada billahi tawfiiq